salaan kadib halkan waxaan doonayaa inaan ku soo gudbiyo talooyin ilaa iyo dhowr ah oo ku saabsan sida teknolojiyada loo baran karo gaar ahaan information technology. haddaba haddii aad doonayso inaad barato information technology, waxa ugu horreeya ee lagaa rabo inaad samayso ayaa ah inaad fikirka iska dhaafto oo go'aan gaarto aadna bilowdo. marka talada koowaad waa bilow. wixii aad baran lahayd haddii ay ku cad yihiin, bilow. ha sugsugin, waqti ha la sugin, maxaa yeelay haddii aad waqtiga dib u dhigto, taas macnaheedu waxa ay tahay waqtiga aad hawshaas guul ka gaari lahaydna dib ayaad u dhigta. marka talada koowaad waxaa weeye bilow, waxay noqotaba bilow. talada labaad ee aan halkan kugula wadaagayo ayaa ah gacanta la gal. haddii aad baranaysid information technology, indhaha ha ka daawanin, ha dhegaysanin, ha akhrinin. macnaha hal mar akhri ama dhegayso ama fiirso waa caadi, laakiin haddii aadan gacanta la gelin ma baran doontid. taas macnaheedu waxa ay tahay inaad wax kastaba ha kugu qaadatee aad kombiyuutar gadato. ilaahuma mid calis ahaado, mid duuqa muu ahaado, kombiyuutar in aad gadato waa qasab, gacantana la gasho. waa sida ugu dhaqsaha badan ee aad ku baran karto. laakiin information technology uma badna waxyaaba theory ah ama nadariyaad iyo waxyaaba lamid ah uma badna. dhinacaas waxaa u badan computer science ayaa u badan. IT-gu inta badan waa wax gacanta laga qabanayo. haddii aad computer science baranaysid waa ka duwanta arrintu. waa laga yaabay markaas inaad logic iyo aad barato xisaabaad iyo algorithm iyo waxyaabaha lamidka ah inaad barato, markaas waa dhacaysaa. laakiin IT haddii ay tahay gacanta la gal. talada saddexaad ee aan kula wadaagayo ayaa waxa ay tahay kala hormari. sida ay u kala fududahay u kala hormari. maxaan kala jeedaa? macnaha markaad bilaawdid ha ka bilaawin midda ugu adag, ka bilaaw midda ugu fudud, kadibna ku xija midda ku xigta, kadibna saas kor u sii soco. maxaa yeelay mid markaasi barataba tan kale way kuu sii fududaanaysaa. inkasta oo qofba wax ilaahay u fududeeyey oo dadka isku wax u fududeeya isku waxna ku cuslayn, laakiin tusaale ahaan haddii aad baranaysid web development, waxaad ka bilowdaa HTML-ka. dadku waxa ay dhahaan waa luuqad aad u fudud. wa ficlan aniga nafsikayga waa aaminsanahay inay tahay luuqad aad u fudud. maxaa yeelay ayadana 120 taag ayay leedahay. inta muhiimkaana waxaa laga yaabaa inay yihiin 20 ama 30 iyo waxyaabaa lamidka inta ugu muhiimsan. marka HTML ka bilow, CSS ku xiji. HTML-ka markii aad taqaanid, CSS-ka way kuu fududaanaysaa, wayna isla shaqeeyaan. marka sidaas ku soco. JavaScript ku xiji, halkaas Python iyo waxaad ku xijinaysid markaas adaa yaqaan. marka sida ay u kala horeeyaan u kala hormari. talada saddexaad oo aan ku siinayo ayaa waxa ay tahay ku tasho inaad IT haddii aad mar bilowdo aad la dhima doontid adigoo wada. macnaha waxaan ka wadaa diyaar u noqo ilaa aad ka dhimato inaad wax sii barato. maxaa yeelay wax dhammaad le ma ah. maalin kastana wixii hore u jiray in aad dhammayso ayaaba aad u adag. saasay tahana maalin kasta waxbaa lagu soo darayaa, wax cusub ayaa la keenayaa, wixii hore ayaa laga guurayaa. marka maalin kasta waa inaad diyaar u tahay inaad update isku sii samayso, inaad hore u sii socoto, wax cusub barato, inay waddadaas aad u dheer tahay. ku tasho. arrinta ugu dambaysa ayaa waxa ay tahay waxa u baranin inaad ku shaqayso keliya, inaad lacag ku hesho keliya iyo wax yalla midka ah. arrintaadu waa inay u ogaataa inaad jahliga ka baxdo oo aad darajo kororsato ood ku biirto dadka wax yaqaana, aadna hore u sii socoto. laakiin wax yar ayaan baranayaa, shaqo ayaan raadinayaa, haddii aan waayana waa ka niyad jabayaa, ma aha. hataa haddii aadan shaqo ku helin, faa'iidooyinka ay leedahay inaad barato IT-ga hore ayaan uga soo hadlay, mawduuc hore ayaan uga soo hadlay. faa'iidooyin badan ayay leedahay oo noloshaada wax badan ka bedeli doona. marka waxaa samaysaa dantaada u baro iyo horumarkaada, naftaada iyo horumarkeeda. iyo maxaa yeelay casrigan qofkii aan IT waxba uga bilownayn waxa uu la mid yahay qof ummi ah oo laa yaktub walaa yaqra' ah. intaas ayaan kusoo koobayaa mawduucii. wasalaamu calaykum. haddii aad waxuun ka faa'iiday, subscribe, like and share.